بسم الله الرحمن الرحيم داودياشن qiimaha iyo qaayaha badan waxaan idin leenahay maalin wanaagsan halkan naga daawanaysaan waa YouTube channelka Caashakiin iyo Facebook-ga Caashakiin Cilmi maanta halkan waxa ila joogo oo martii ah walaalkay Yusuf Xaybaro oo aan rabaa wareysiga adduunka inaan ka qaado oo aan soo xasuusto waaye xilliga aan saxaafada ku jiray marka walaalkay Yusuf soo dhaw caasho ma santa walaal adiga iyo asxaabtaada aad baan idin salaamayaa ku xiran YouTube-kaaga iyo sidoo kale page-kaaga Caashakiin Cilmi waa ku maasantihiin muuqaalkii hore aan idin wadaagnay si wanaagsan ayaad noo soo dhaweyseen waxaan rajaynayaa meesha meel ka sareysan Caasha gaarsiisaan channelkeedana waa ku dhawahay waa markii labaad aan ka soo muuqanayo YouTube-ka iyo page-ka Caasha waa maasantay Caashi muddo hore ee saxafiid bay ahaan jirtay marka baashi maanta aan dib leeyahay boroobeynaya soo dhawaada saaxiibayaal haddii aan ugu cusubtiin channelka subscribe noo saara page-ka soo follow gareeya muuqaalada la gareeya u share gareeya asxaabtiina runtii haddaad like noo saarto meel fog baan gaari doonaa haddaad subscribe noo saartana asxaab badan ayaan nagu xirmi doontaa marka waa maasantihiin waa wax yar aad u fudud intaan warjeynaya walaasha inaa u samaysaan dabcan wareysigaasina maanta wuxuu noqon doonaa wareysi kulul inkastoo aan mar hore u sheegan kuli su'aalaha aad ku adag waad iga deynaysaa caasho dhow walaalkay Yusuf horta kulley wax walba way dhacaan qof walbana taariikh gaar uu leeyahay mar la yaab mar farxad marka bal intii magaalada Muqdisho Yusuf oo aad joogtay maxaa kugu yaab badnaa maxaa kugu murug ama farxad badnaa bal waxaan arrimahaas rabaa inaan ka wareystay bal soo dhawow caasho waa maasan tahay kulley horta waxyaalaha Muqdisho aan ku arkay qosol bay u badnaayeen magaalada Muqdisho waxaan imi 2016 bishii 9aad 5teedii baan ka soo degay airport-ka abaar 12 iyo barkii duhurnimo ama 6 saac iyo bar hadba dadka soo yaqaanaan waxaan degay hotel Alfred Liado ku yaala area dabka runtii cabsi badan bay iga muuqatay markaan magaalada imaanayay aad baan magaalada Muqdisho uga baqayay hawl shaqana waan u imi qorshayguna waxa inaan 7 maalmood joogo hadday ugu badnaato kadibna aan laato maantana waxaan joogaa 7 sano waa ilaahay mahadii ilaahay baan uga mahadcelinayaa walaalay caashay halkan waxa jira anigu magaaladan ka yimi iyo magaaladan dadku dad Soomaaliyeed waa isku mid laakiin waa lahjada hadalkay ku kala duwan yihiin marka waxyaalaha igu yaabka badnaa ee xamariga Soomaaliya waxa kamid ahaa lahjada hotelkaasaan muddo deganaa ka bacdi adigu 7 maalmood waa la dhaafay magaaladii waxay noqotay inaan sii joogo oo hawli dhiibto marka guri baan degay degmada Boondheere kamida gurigaas inaan saaxiibanahay baa aad iga caawiyay oo reer Muqdisho oo guriga ii soo kareeyay oo dadkii la hadlay oo damiin baa la iska noqon jiray damiiniga noqday gurigan sidii ku tagay marka nin yar oo dhalinyaro ah oo family wuxuu ku inuu ninkaas waa nin marti ah magaalada marka la yaqaan wixii uu ku dirsado u doon marka wiilkii aan hurdo badan ugu jirto buu ii yimi waxaan ku walaal fish ii keen inanku waa baxay aniga intii aan gamay inanka uu soo socday inanku waa toosiyay bariis iyo kalluun buu ii keenay أنا وحاول درست بالكن دو بريس كله. أبي بريس أو درست. ها ما كانوا فيش ما نقنا أنا ما دام هرجس كيمي فيش ما نقنا. إذا كيوا بحي بالك كلون كي بريس كي ويكان أنا هردان سواك عاي وش كان صور دقدي واحد وحسن إنه كنا في عوان. وأنا كان وبدرسينا كشونسي. أنت ده أسكعناي هرد بدنا مركاي هيسي. واسحتي تبص عن سواك عقلبتي أفرت قالوا. ويل كان واعي ولا لوني فيش محي وكين ويسي. وعنتو يدهن. فيش كو كان وعنتو ده ورمانا فيش عنا ده ها ورميها إلهي كعفسنا مقف بنادم فيش عنا ذاك يا أبو محمد عاد موارد ده يركن حلو واي مركب نفسي وحجرة ولانيو فيش معاه أنا عنا عبرتي وأنت ألوجي وعنا أنا كده أنا عنا يكالن رسح مركا وحن سير ورنيو نكان إنه الوقوي توكو أركي already وابكو بلاوي فينك نحن مركب جاء يوم ها نك أي ما نوع عاد وحنا قسم حلو نيو ساكن فيش كنت تصاحب marka wiilka lacagtii aan u diray waxa u maleeyaa inuu cuntadani iiga soo iibiyay baashii inuu san ii keeninin ha yarka xanaaqaada wiilka isku booqnay wuxuu gurinayaa waa cunto dhahay wallahi waxaagana waa qabtay kitaab soo qaado dhahay ninkii waa istagaal marka gidaarkan ku qabtay yar kale oo aan halka aad uga salaamay Cabdullaahi la dhaho waxa uu wasaaradda inta waqafta jooga baa guriga la degan yarka qeeladayda ku soo baxay waa noo imaado waxaan saxo fiiri guriga ay Allah maartay qof inaadan fish cunay wuxuu leeyahay habo xalaaba cunay marka waxaan oreeray xamarka ku heshiin ma faati yarkii aan gidaarkan ku qabtay yarkii ninka iga fufuroniyo saxaabo shtaanka iska naar maalintaadii joogu dhahay saaxiibaniyo yarkii ninkii uu kala celiyay wuxuu inuu shtaanka iska naar walaal waxaan dhahay waraniga caqli wax kale ii sheega aniga qof fish cunay waxaan dhahay macal xarigeed miyaa marka
بسم الله مع الحرق يد معنا ها وحنا يعني حرقاني waxa sheegaysa walaal ma fahmiyeen yarkan marka reer baydhabo waa ها yarkan kale reer muqdisho waa warnimo iga baxaan qolkayga baa saaxib ana ii heshiisana filinkiina waan fahansan iska baxa yarkan waa warnimo waxaan dhani waxaan qofkan waan la ii soo dirtaa dhaaday qofkan caawi muxuu yahay waxaan dhani ninkii fiishan u dirsaday fiishtaal cunto leeyay yarkaas marka wuxuu ahaa yar hargeysa tagay yarkan aan saaxiibna ha marka wuxuu yiri saxaw fiiri yar kalluun ma ku keenay ha adna waxa uu dirsaday fiishan u dirsaday wuxuu dhawarniyo dadkan fiish kaliya waxa uu yaqaanin kalluun wakaas waxa dhahdaa doobe baris wiilkii oo yarka wax naaqsiyo marka anigana waa la igala ballamay inuu caayo ama xumaan ugu sameeyana ma rabo waana xanaaqsiin inuu deyru leey deyrkii yarka fadhiya u tigi wuxuu yiri waxaan rasan leeyahay saxaw raalaho aniga doobe baris aan ku dirsaday cuniga oo ooyba adoo doobe baris aniga dhihi rabay maxaa aniga idhahda fiish waliba intaan kugu baxay ama qaaxid ku tagay cunto ku keenay ku soo adeegay warni wax la caawin ma tida qurnato dhan markaas aan saxaw raalo saacada horta raali killay horta dhacdadii igu horeysay magaalada Muqdisho martay labo haddana yar kalaan magaalada isku baranay qaacidu markiisii wuxuu yiri saaxiibo maadaama hargeysa ka imaaday magaaladan qarax markuu dhaco hadii meel uu ku dhow ka dhaco waa la istuuraa dhulka xabada istuuree waayanda yusuf sheekh subxaanahu baan balansanay guriga hodan Afrika oo soo socda barnaamij waxa sameynaa markaa Sheekh Shariif heesiisi aan gurigii ka soo labistay waa soo baxay meeshaan gudka jilo agtiisa markaa marayaan qarax dhac meesha oo daljirkaas ku tuuray ha marka waxaan ka fikiray in waa labisan tahay seeya shama istuur hore iska tuuray dhulka meesha ambalaasyo iyo qooq iyo qaylo iyo waxba meesha marka meesha abaarnaas ka sii أنا ماشي إذا كنت فنان عسكري يا ماشي سومري قري وقبت واستاج مركب ورني صاحبي كده وركض سوري كا وراح ماشي بسعيد سوق رحمة عينا ده هدور عينا يا والله استورا ما كون مركب نيك اللي هتشد يدو فهمي برجع ندي بعشي بيور كده حاجة زنقال لا زيد كاستعمالي نيك أي نيك نفي عنه عدوس عسكري عسكري حنا الله ما أنت ودي الله هاي نيك أي حنا نسحب البوس بس عسكري شوف وحدانية موالنت هذه قرح مرة رو رعي طبعا تخاك سوريجي ماشي إذا ما سوق عليه بلا ما حب تشوفي waxaan warnaa in si xabsaas la sheeg marka xabada dhacay marka israada kacba xabada dhacay waa si jifta marka xadaniyo maanta meesha wala isku haystay si uu kaca marka annaha kicina leedahay marka wuxuu yirniyo ina bixi xagin too socotay yusuf yaa wacay hodan Afrika wacay waa iga qabatay waxaan dhaniyo aniga waxaan guriga ku balansan aniga halkaas qarax dhacay askariga la jooga askariga ugu dhiibay waxa dhadaniyo soo wadinkan inta dhow deganeed meeshan oo hooyinka ka daalaysa guriga sida loo keenay tii labaad tii saddexaad caashay magaalada naga soo martay waxay ahayd kelmadan niyo adiga dhan lagu arkoy taasna iyadna walaalkeeda leedahay meel hotel aan tagay isla yarkii gurigii dajiyaan kaaga sheekanaya hotelkan ay geeyay marka miis halkan aan saa u fadhiyaa laba gabdhood baa halkaas soo maray abaay seeti xaaladaada ka waran abaay adiga dhan lagu arkoy maxaa dhacay marka waxa sanay labada naago mid 3D waxoogaa ما ميدان لا أركين بجيني مياه. جيني. ما قاعد سلا وقلدي كلا سكرس كسور دكتي. ترتيبا وقع كعي. يركي هو سويتي وحنا نيو ماشي ناقة سوق على سركين. مركا ميجان شقة كسر صعد النيو. جيني حتى وجوه. إنه بيحصل ضدك على الخبط. عيدن كي ماشي يلالني. صوبنا. أترصبح. مركا ماشي مال دير واي أو توقع. صح. قيب مقاعد أولاد مركا. qaybtana leegeeya dadkan fiiriya ma joogtaan dhaa waa baxa meel dhaxan ugu tagna habli waa joogan qabta waa kuna dhaa habli qoriga ugu qabta waa dhaxay macana laga rabaa waxaan sameyn tan waayaan dhaa inta waxaan dhahay ciidanka aan dhahay fiiriya labadana ugu idinku mudaarkiisin asena ha waxa dhado mid baad kala codkeeda maqlaysaan arkayn bismillah habli wala kicay wana buushtaan iska naara mid ay ugu idinku dhiibay way cabsatay warna maxaan sameynay بلاك اللي سوت الشيء نكى يركع ماش ترياك ها عيدا كان مسؤول كها أنا لوكي نيوم حارتونا وحنا نيوم ناجحان يقول صرت تاجن هذا قد من لو أركوي دهن حتى متى كل حتى أني أباي حافل قاعد معايا وهذا قد لو أركو معايا أركو حنا نيوم شغالة مش كسر تقبته وقت نكى أصلا نكى ماش جوي كذا كده معتي ولا نيوم نكى حاجة كنت نكى نيوم قوي ولا ولا نيوم دم قبلي هذا هبلي واحدين مركز أنا كيشك وحده ونيو كلمة ده أنا حاوي علشان نيو مالمها لو ما أركي مو أركي مالمها عملنا كده وحنا هاي أديك دن أقل أديك دن وده ما يسترت لكن مالمها كم أركي هذا ده هذا مركز كعادي وهذا يعني أنا صح ولا كرجي كسي أنا وبقى يا أنا وحسب إنه أنت ده كان قلافن لها قفتان والبكاء هذا كقوم
ninka taliya oo dhan waa maasantay habliya leegay habeenkuna hablo shaqaysanaya waxaan walaal raalli ahaada marka walaal caasha sheekooyin aad iyo aad u tibrada magaalada ka soo maray labo hudheerada marka la isbaaraay askariga wuxuu ku tilmaamayaa saas inaa dhaxdo korka gacmaha aniga askariga ugu horeeyay dafaan dhahabansi dalaq xabadku intuu gacaniga galiyay wuxuu igu tuuray laba qof iga dambeeyaan madaxweyne xukra markaasaan leeyahay xalla xawad xaga dadka tursan adii maxaa gacan lagu tagtaan abisiye bidri ina koro askari dhinaca fadhiya wuxuu saaxiib ninka haba siine ninkan inuu ku baaro rabaa gacan kurtay waxaan dhahay muafka galaalno aan ku baaraha gacan kurtay xagga sidii nin ka saay ana wax taageeraashaada abisiino ya aman habasiina dhuntaanka kale marka caashay magaaladan waa horta laakiin dad waxa ku nool Muqdisho Soomaali dadka ugu gubsan dad gub ah oo qalbi wanaagsan oo la noolaanshiyooda aad wanaagsan yahay oo dadka ixtiraama waliba dadka magaalooyinka kale ka yimaada aad iyo aad u soo dhaweeyo ixtiraama runtii magaalada Muqdisho dad waxa ku nool aad wanaagsan boqol horta wax dhib ah oo ama aan laado dhibaato aan kala kulmo magaalada Muqdisho ma jirto oo iska dhacda mar qaar ka dariiq iska marayeen in askari ku foodeeyo ku dhawaatay meel ka celiyo dadka kala simantay laakiin magaalada 7 sano aan deganaa dhowr degmaan ka soo degay dadkan degmooyinka la degay waa dad aan runtii wanaag u wada hay dhamaantood marka waa badan tahay sheekooyin badan marka hadii maanta la bilaabo qayb kalena waa kaaga soo sheekeyn doona aad ma sha Allah runtii waa shaka aad u qurux badan waaye waa aragnimo badan siinaysa dad kale oo hadda iman doono hadda waa timaadiin haba isku siinna askari taas ku dhaha caloosha ka iska ilaaliya doobi barasna dhahaya fiisha dheela fiisha taa malaya la idin keenaa waa ku tarbiyeeysin malaya la keenaya marka waxa idinka هذا ما سنت ولكن يوسف runtii waan kaaga mahad celinayaa maanta kaliya ma aha kulay waqtiyo badan inta ku badan waqtiyo badan dhacdooyin cajiib ay soo maray marka baartigii koowaad baan maanta halkan ku soo gabagabeynaa kadibna qaybta labaad عشان ما كلا سعندو تدل له دليل مو إن شاء الله إن شاء الله هذا ما سنتين وعن إذن لنا هاي نقصوا بطة ومحلنا للجوجا وكوا مقرنا نوع ماذا هذا لنا سود وهذا ما ركتي قرب بدنا نصي صاحب عيال تطابش إذا نسكونا وعندك لهين ما ركتي وحكي لهين بس كتا تابتي إذنك marka aad iyo aad ugu mahad celinaa walaalkay waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo bye bye